السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوري waa saaxiibayaal shabakad Samlimi magacayga waa Adbaas Xasan Nuur waxaan ahay aasaasaha Akademiyada insha Allah hore waxaan ugu socday koorsadeena aan ku baranaynay computerized accounting gaar ahaan software loo yaqaan QuickBooks insha Allah maanta cashirkeena waxa kaleenahay hal ujeeda kaleenahay waan cashir daba socday cashirkii kan ka horeeyay runtii halka ujeedana waxay tahay adding multiple inventory item inaan ku soo darno inventory badan inaan hal mar aan ku soo darno cashir koori waxaan ku soo qaadanay anaga ku soo dareyno hal inventory anaga ku soo dareyno marka hadii dukaan hore u furnay uu ahay oo aad rabto inaad xogtiisa ay gelisid QuickBooks marka ku adkaanaysaa marka inaa hal xab aad gelisid marka waxaan ku tusi doonaa maanta qaab aad wax badan aad ku gali kartid hal mar aad ku gali kartid kuwada xogtaada waxa ku soo diyaarsanaysaa Excel aad ku soo diyaarsanaysaa xogtaada marka Excel aad ku soo diyaarisid hal mar ayaa koobi ka soo dhigaysaa kadibna hal mar QuickBooks ay gali doontaa marka ku soo dhawaada cashirkeena okay marka hore waxaan noo soo kicisaa ama noo soo daartaa software-kan noo soo daar QuickBooks okay markii saan uu soo kaco software-ka waxa furna company-na furnayna okay company markuu saan ugu soo kaco shaqada ugu horeysa tigin waxay tahay inaad tagno list kadibna aan sii doorno item list aan ku dhufano shaashadan list aan soo bixiyso marka shaashadan inoo soo baxay meeshaan aan furayna item qoranta furayna meeshaan ay qoran tahay add or edit multiple items aan ku dhufanaa okay marka ku dhufano shaxdan aan soo bixiyso waxa ujeedaa in uu hadda noo diiwaan gashan yahay hal service oo kaliya inuu noo diiwaan gashan yahay ku muuqato meeshaan aan furaysa meeshaan aan ku qoran service items ama list mid ka rabno ana service marno waxaan rabnaa inaan ku darno inventory caadi aan ku darno rabno okay inta aad furaysa waxa soo dooranaysa inventory part soo dooranaysa okay ujeedaa labaas inventory aan soo sameysana cashirka hore ayaa soo sameynay marka waxaan rabnaa wax fara badan yani xogta dukaanka oo dhan aan soo qornay yani Excel aan ku soo qornay kadib waxaan rabnaa inaan soo gelino waa fahanteen marka Excel aan soo furanayna okay markii Excel kasaan oo nagu soo kaco shaashadiisa waa yareynaa sababtoo shaashada hadda way qarnaysaa marka saa u yareeyno meeshaan aan taabanayna sorry hoos u aastay marka waxaan rabnaa inaan qorno item name inaan inta qorno meeshaan aan ka buudna u baahanin cost aan qorno series price aan qorno cost of goods sold asiga is grid doon sababtoo ah anaga marab inaan gelino hoos u sii jiidina okay marka aan sii jiidno income account anaga gelin inaan hal column aan ka buudna qanaysa okay marka inventory account asiga is grid doono diyaasna u sii wadno total value waa asiga is grid doono quantity on hand hadii wax ku yaalaan adiga ayaa gelinaysid okay marka waxaan rabaa inaan shaqadeena hadda aan bilaabana rabaa Excel noo soo qabo Excel ka soo jira waxaan ka bilaabanaa waxay tahay item name okay column ka rabta bilaab laakiin meesha ka bilaawdo waxa muhiim ah marka kan aad ka buudist in hal column aad ka buudid kan ku xiga aad qortid kan waa qori doon kan waa ka buudi korna okay saasina u fahantii waa ku muhiim so waxa u horeeyo item name aan inta qoreen okay item name marka qorno hal column ka buudina sababtoo ah sub item anaga mu baahnina qorno hal column marka si buudno column ka saddexaad waxa qoranaa cost okay yani sheegan cost uu fadhiyo cost marka qorno sales ka way ku sii xigtaa oo wax mu dhaxeeyo wax ma ka buudis markaas okay meesha waxa qoraysa sales price okay lacagta qiimaha gadeeno sales price marka qorno cost of goods sold asaa is gelinayo okay marka hadii aad is gelinayo waa u banaanayna okay marka u banayso sorry meesha ana qarsamuusa ayraasna u soo jeedinayna okay adana cost of goods sold agtida mareynay okay inta aman oo furan tahay Excel keen inta okay sales price waxa ku soo badnay cost ku soo badnay okay asaas gelina soo kale waxa ka fuudina preferred funder anaga u baahnaa qormaa ka sii badina income accountiga waa muhiim okay so waxa ka buudnay kan waa ka buudnay kan waa qorina okay waxa qoraysa marka account ku xiriirsid okay sales revenue anaga ku xiriirna okay si uu qoranta qor sales revenue okay inventory asset ka si as gelina okay u baahnid waa ka buudisa
sidoo kale haddana way naga qarsantaha shaashada sida idin muuqato ama shaashadan banu weynaybo yani income account aad dartaan waa qoran series revenue kan asiga isku qori doono kan uma baahanin kanna uma baahanin kanna uma baahanin okay meeqa ka boodina mar 1 2 3 4 5 6 xabo ka boodina okay kan toddobaad waxa qorinaa quantity on hand okay also okay excel keena meeqa ba ka boodina 6 xabo ka boodina okay 1 waa ka boodina 2 waa ka boodina 3 waa ka boodina 4 5 6 meeshaan waxaan qorinaa quantity on hand soo naga xaqiijina ka boodnay kan hortu meesha weeye inta la faayasi 1 2 3 1 2 3 sax waa 6 ka bood marka waxa laga rabaa meeshaan inaad soo buuxisaa laga rabaa okay meeshaan waxaa gelinaysaa item waxaa soo gelinaysaa maxaa la dukaankaaga tagaysaa yani alaab kasta ku taala soo qoraysaa okay meeshaan waxaa rabtaa gelinaysaa okay anaga marka waqti badan inuu naga dhamarno 3 xab camal iska gelinayna okay charger Samsung oo kale tood okay waxaan ugu fadhiyaa leenahay $1 ugu fadhiyaa leenahay $2 waa gadeynaa sales revenue aan akoonka ku xirmayno waa sales revenue marka waa qoraysaa ama kana ka soo jeedi kartaa okay column-kan wax dhanka kuma jiro laakiin caadi waa soo geli doonaa okay sales revenue marka inta raado meeqa xaba ka taasho waxa ay taala jaajar tusaale ahaan waxa dheenaa 10 xabo camal jaajar noota meeshaan waxaan gelinaynaa haddana product kale gelinaynaa okay waxaan u taal waxaan ugu fadhisaa leenahay tusaale ahaan $4 ugu fadhisaa waxaan gelaynaa $6 camal ay gedinaa sales revenue way kan la kusoo jeed okay waxaan u taasho tan wax ma noo talaalina okay soo kale hal xabas saddexaad iskaga darsanayna halkan sidoo kale meesha hal product kale gelinaynaa okay aniga waa soo goobanaa sababta waqti inuu ka dhumaro tusaale iPad as gelinaynaa waxaan ugu fadhiyaa leenahay $250 ugu fadhiyaa waxaa gadeynaa adiga iska dheh $400 oo kale tood iska dheh sales revenue ku xiran meeqa xab noo taasho 5 xab camal noo taa okay marka aan marwaa marka inaan sii badiyo laakiin adiga in dukaankaaga taasha inta soo gelinaysa okay so waxa sameeyay waxay tahay inaad soo koobiso okay highlight saaraysa okay highlight markaad sarto yani item name iyo waxa ka reebis item name waa ka reebisa cost soo kale waa ka reebisa series price kuwaas ma dooranayso okay roogaas ma dooranayso rooga ka bilaabanayo ugu wareeg adoorna okay waxa dhaysa control C marka isla wareegsato oo ku koobisantahay okay quickbook noo weli quickbook marka tagno meesha u bilaaba geenina okay saan soo jeed warqada right click marka siiso waxa dooranaysaa pasta okay pasta marka ku dhaafsan oo jeeda asiga isgelinayo wax dhan oo jeeda meesha ka soo boodnana oo ka boodo kale meelaha kale waa ka boodnay total value waa asiga isgeliyay okay wuxuu isku dhafanaya quantity ku taali cost ku fadhiyo isku dhafanaya quantity on hand waatan okay so waxa leenahay save changes okay wuxuu leeyahay 3 inventory item because have been saved okay 3 inventory item ayaa lagu save gareeyay okay aad ma santaale intaas weey marka cashirkeena maanta runtii cashir aad u muhiim waa kana adeen soo gal inventory inuu soo awjito earbuds charger Samsung iyo waxa kale oo soo galinay iPad saddex xisaabaad soo galin awjeeda totalkooda inta nooga taasho akoonada ku xiran yihiin inventory part inay awjeeda sama marka cashirkeena intaan ayuu ku yahay fadlan haddii aad muuqaalka dhamaysatay waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto واحد باست حسن نور أويزين له أضو دحل ريبي كرو نقول انت ألتبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.